السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا قيسي ورحمة channel صحابتنا عصب سو دوادا صحابتك كسير رسينا عاديات بعض محسنتين قودان عدو البوصوب وقتو channel كقيسي ورحمة والعليال عاديات باردين كما هذا علينا داوديال مانتو حربانا ندلا وداغو قصة عاديات وعجيبة ورنتي عاديات وحنون بدن قصة سو كدا عادي قوي الصوماليات او قرب الجوكتا oo isku dayay inaa maaragtay ilmahooda dib u celiyaan dalka Soomaaliya ku celiyaan dhaqan celis u sameeyaan diinta iyo dhaqanka iyo af Soomaali baraan ayay arintani ku dhacday. Arintani waxay soo gaartay kadib markii aan maqalay qisada ku dhacday ama arinta ku dhacday hooyo Amran Xalane oo qurba joog ahayd magaalada Muqdisho ku laabatay oo maaragtay gabadheeda magaalada Muqdisho ku celisay halkaasi dhaqan celis u sameeysay ama ku xareysay xarunta dhaqan celis ama diin laga barto kadibna dhibaato ka soo gaartay gabadhii halkaasi ka baxsatay codsatay in lagu celiyo dalkay ka imaaday. Arinta hooyadani saddex qaybood ayaan dila wadaagnay. qaybta koowaad waxay ahayd qaybta hooyada ka cabanayso gabadheeda la afduubay ama la isku dayay la kufsado. qaybta labaad dowladda Soomaaliya gaar ahaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka jawaabay gabadhaasi ama la helay dhinaca kale wax dhibaato loo geysanin. qaybta saddexaad amal ayadoo afkeeda ku hadlayso oo codsanayso inay dalka ka imaado ku noqonayso ayaan ka hadalay waliba ay sheegtay inay wax dhibaato gaarin dalkan waan ka tagay dalkan ka imaadaan ku noqonaya ayadoo oranayso wareysi laga qaaday ayaan idinla wadaagnay. barnaamijyadan intay socdaan ayay qisadana soo gaartay asxaab kamid ah asxaabteena oo daawaday qisada hooyo Amran Xalane ayaa nala soo wadaagay qisada. anigoo hadal ku dheeraanay waxaan u guda galayaa qisada asxaabteena nala soo wadaageen oo runtii aad iyo aad aan uga mahadcelinayno. qisadani waxay runtii aad iyo aad similar yihiin qisada ku dhacday hooyo Amran Xalane ama Amran Cusmaan Cumar. qisadani waxay ku dhacday qoys Soomaaliyeed oo ayakan qurba joogta ahaa kadib magaalada Muqdisho ku laabtay oo maaragtay ilmahooda magaalada Muqdisho ku celiyay inay dhaqan celis diinta iyo luqadda baraan. saddex gabdhood ayay wateen hal gabar ayaan ka hadlaynaa insha Allah taala. labadii gabdhood oo kala arimahooda kama hadli doono sababtoo ah qisada la ila soo wadaagay waxay ku socotaa ama ku saabsan tahay hal gabar oo kamid ah saddexdii gabdhood. gabadhan inta la keenin Soomaaliya ama inta Soomaaliya lagu celinin ka hor dalka kamid ah dalalka Scandinavian-ka ayay joogi jireen. halkaasi gabadhani waxay ahayd gabar oo waxbarashada aad iyo aad ku fiicneed. high school ayay ka baxday jaamacad ayadoo dhiganayso hal sano jaamacadda ka dhigatay ayaa la go'aansaday in la qaado oo Soomaaliya loo celiyo. la qaado oo Soomaaliya loo celiyo ayadoo ka raali ahayn maadaama waxbarashadeeda u socoto way diiday. waxay tiri waxbarashadeeda ayaa dhameysanaya meel uma socdi balse arintaasi waa laga diiday. waan ku wadeena ayaa la yiri aakhirka waa la isku afgartay gabadhii waa la waday. horta gabadhii inta la wadin nolosheeda qurbaha ayaan idinka sheekeen doonaa insha Allah taala. gabadhani waxay ahayd san hore idin sheegay gabar oo wax baratay oo high school ka baxday jaamacadda dhigato. waxay ku jirtaa ama ciyaari jirtay basketball ciyaarta loo yaqaano basketball ama koleyga ayay ciyaari jirtay. dhinaca kale gym ayay aadi jirtay biraha ayay qaadi jirtay way ordi jirtay. waa gabar dhisan balse gabadhani xagga waxbarashadana way ku fiicneed. ciladeedu waxay ahayd relationship-ka ayada iyo waalidkeeda. ayada iyo waalidkeeda ayaa waxay isku noqdeen dab iyo banziil ma is arki karaan. hadalka waalidkeeda ku oranayo ma maqlayso. ayada sidoo kale hadalka ay waalidkeeda ku oranayso hadal la qaadan karo ma ahan ama waalidku qaadan karo ma ahan. dhibaatadu halkaas ayay ka imaaday. wax walba way ku fiicneed xagga waalidka ayuu dhib uga imaaday. wadankan aan joogno qurbaha Mareykan Canada Yurubta waxaa ka jiro xarumo dhaqan celis ayaa ka jiro. xarumahan dhaqan celiska ah way ka duwan yihiin xarumaha laga helo dalkeena ama Soomaaliya. xarunta marka la geeyo ilmaha edeb daran ama waalidkooda maqlaynin oo violence ah oo waalidku faraha ka qaadeen oo la awoodi waayo waxba laga qaban waayo xaruntan ayaa la geeya. xarunta marka la geeyo diin laguma baro kaliya waxaa la barayaa qaabku qoyskiisa uu la dhaqmo dadka kale uu la dhaqmo uu isdajiyo ayaa maaragtay la bara.
xaruntaasna waxaa macallimiin ka ah ciidamo hore oo retire noqday ama dadka hore ciidamo ku jiri jiray oo runtii naxariis lahayn aad iyo aad u kulkulul oo hadalkay kugu oranayaan iyo qaylida afka inta sanka saan lagu saaro lagu qaylinayo oo gacantana maaragtay inta ku qabtaan ee ku ruxayaan meel noocaas ayaa lagu geenaya oo lagu naxariisanaynin dadka Yurubta jooga ama dibadda jooga inay arkeen ayaa laga yaabaa gabadhan aan ka sheekeenay waxaa la geeyay hadda ka hor goobaha noocan oo kaleeto oo dhaqan celis loogu sameeyo ilmaha waalidkooda maqlaynin ama iskuulka markay aadaan violence ah ilmaha kale la heshiinaynin waalidkooda ay guri markay imaadaan gacanka hadal iyo maaragtay hadalka waalidkooda maqlaynin goobtan ayaa la keenaa gabadhan inta la aaminsan yahay waa gabadha ugu horreysay oo Soomaaliyeed oo la geeyo goobtan oo kaleeto goobtani marka la geeyay waxay ku sugneed muddo 3 bilood ah 3 bilood kadib markay soo baxday halkeeda ayay ka bilaabday sababtoo ah gabadhani ee walba iskuulka markay aado dadka iskuulka jooga heshiis ayay ahaayeen macallimiinta dhib uma geysan jirin waliba basketball ay ciyaaraysa teamka ay la ciyaari jirtay waxa dhibaato uma geysan jirin meesha la geeyana waxaa jooga macallimiin iyo ilmo kale oo edeb daran oo halkan la isku keenay halka markay imaade dadkii ewel la dhaqmi jirtay camal waaye waxba kama duwano macallimiinteeda hore iyo ardayda iskuul isla dhigan jiray waxba kama duwano waxaa loo arkay gabar iska degan oo maaragtay xaaladeedu fiican tahay 3 bilood kadib waa la soo daayay way soo baxday markay soo baxday barteeda ayay ka bilaabday dhinaca qoyskeeda waxba isma bedelin kadib waxaa la go'aansaday in la qaado oo Soomaaliya la geeyo oo halkaas diin la baro oo dhaqan celis loo sameeyo ayadana way diiday maadaama ay iskuul dhiganayso maadaama ay jaamacad dhiganayso ma baxayo ayay tiri jaamacadayda ayaan dhameysanaya balse aakhirka waa lagu heshiiyay waa la qanciyay waxaa lagu qanciyay in Afrika la geen doono muddo ay joogi doonaan kadibna soo laaban doonaan magaalada Muqdisho ayaa la geeyay isla markii maalinta la keenay maalintii labaad xarunta dhaqan celis ayaa lagu xareeyay saddexdoodaba labadii gabdhood oo ayada ka yar iyo ayada laftirkeed xarada dhaqan celis ayaa lagu xareeyay laba maalin markay ku jirtay waxay isdagaaleen macallin kamid ah macallimiinta xarunta ee dhaqan celis ah gabadhan waa gabar xoog weyn oo bir soo qaadi jirtay jiim aadi jirtay haddii ay qof isdagaalaan ama hadal aad ku celiso ee xanaaqdo gacan ayaa ka horeyso macallinka isku dhaceen ayay isdagaaleen gacanka hadal ayaa halkaas ka dhacay gacanka hadal markuu dhacay way ka xoog badisay macallinka si xun ayay u garaacday si xun ayay u dishay waliba dhaawacyo culus ayay u geysatay heerka waxaa la gaaray macallinka hospitaal loo qaado 2 habeen hospitaalka ku jiro gabadhii halkan waa lagu kari waaye xarunta dhaqan celiskana ee waa lagu kari waaye magaalada waxay ka baratay gabdho kale oo qurbaha laga keenay ilaa 6 gabdhood ayay isku keentay ayada ayaa hoggaan u magaalada meel kasta ay maraan xoog ayay ku maraan tusaale ahaan maalmo kamid ah iyagoo isla socdo ayay bajaaj istaajiyeen ninkii bajaajka wuxuu ku yiri kulligiin idima qaadi karo qaar aniga soo raaca qaarna maaragtay bajaajka la sugta ayuu ku yiri way ka diideen xoog ayay ku galeen kadib waxaa lagu yiri nawadi na dhaqaaji wiilkii bajaajley ahaa wuu waday wuu kaxeeyay intuu uu sii socdo waa la dhibaateynay af English ayaa lagu hadlayo waxaa lagu leeyahay this guy is handsome iyo waxa noocan waxa arrimo shukaansi camal ayaa lagu dhaga hadlayo wiilkana waa wiil iska shaqeysto oo iska daacad ah waxay sheegayaan dhagaha uma dhigin bajaajkiisa ayuu iska sii watay aakhirka gabadhii ayada ahayd oo aan qisadeeda idinka sheekeynayno ayaa waxay ku tiri gabdhihii gabar kamid ah ayaa ku jecel ayay ku tiri wiilkii ma hadlin dhagoolo ayuu iska dhigay wuu sii socday meeshay ay u socdaan markuu gaarsiiyay lacagta way u diideen kulligood way ka wada degeen hal mar markaasi wuxuu ku yiri lacagtayda isiiya waxay ku yiraahdeen lacagtaada bedelkeeda annaga 6 qof aan nahay 6deennaba numberkeena ayaan ku siinaynaa 6 number oo kala duwan ayaa lagu siinayaa lacag maxaa ku falaysa ayaa lagu yiri wiilkii wuu yaabay wuu amankaagay waana dhacdada ugu horeysay oo ku dhacdo tan intuu bajaaj ka waday arrin la yaab leh ayay ku noqotay wuu iskaga samray wuu iskaga tagay arrimo noocaasi iyo kuwa waliba ka daran ayay magaalada ka wadaan qisadii Amal Nuur Cusmaan oo dadka intooda badan la yaabeen gabadhii dalbatay inay ku laabato dalka laga keenay ayay dad badan la yaabeen ama la amankaageen balse tan ayaa ka daran
tan waxaa dalbaday hooyadeed ayaa dalbatay in la qaado oo la celiyo ama lagu celiyo meeshay ka imaaday sababtoo ah dhibaatooyinka ay magaalada ku hayso oo xarunta dhaqan celiska laga kari waayay macalinka dishay qof hadal ku soo celiyaba gacan ka horeyso sidoo kalena maalin walba dacwo socoto maalin walba guriga loogu imaan ama waa la soo wacaya gabadhaada saanay nagu sameysay saanaa nagu dhacday maamadii markay waalato waxay qabato garan waysay labadii kale ha ii joogaan waxay ii bartaane tan ha la iga celiyo ayay codsatay gabadhii laftarkeed ayaa marka la baryayaa inay dib ugu laabato meeshay ka imaatay khayr allah ku siiyey hal mar uun diyaaradda koroo naga laabo ayaa laga baryay ayadana arrintaasi waa arrintay raadinaysay oo muddo ka fikiraysay oo weliba waxaa la aaminsan yahay sababtay dhibaatooyinkan oo dhan u sameynayso in la celiyo gabadha iyadana way yeeshay diyaarad ayay kortay waddankay ka imaaday ayaa lagu celiyey halkaasi ayay iskuulkeeda ku noqotay qurbaha markay joogtay waalidkeeda besay dhib ku haysay dadka kale oo dhib ka sheeganaya muusan jirin iskuulkay aadaa dhib lagama soo sheegto jiimka ama meel biraha lagu qaado workout lagu sameeyay aadaa wax dhib laga soo sheegtay ma lahan basketball ay ciyaartaa dhib lagama soo sheeganin balse dhibaatadu waxay ka taagneed iyadii qoyskeeda qurbaha markay joogtay Soomaaliya markay aaday qoyskeeda iyo ayada sheekadu way ka ballaaratay waxay gaartay magaalada oo dhan goobta dhaqan celisa meel walbo ay marto inay noqoto meel dacwo un laga soo dacwoodo wax kasta waa qadar alle ilaahay muqaadirtiis waalidkeed iyo ayad un baa is arki karin waddankeeda markay ku noqotay nabad ayay ku nooshahay jaamacaday dhigataa halkeeda ay waxbarasho ka waday ilaa maanta jaamacadeeda ayay ku jirtaa waa arrin la yaab leh sababta gabadhaas iyo waalidkeeda u heshiin la yihiin lama garanayo labadii gabdhood oo ayada ka yaryar waa laba gabdhood oo iska fiican oo hadalka waalidkoodana maqlaayo oo ilaa maantana Muqdisho ku sugan xarunta dhaqan celiskana ku jiro diinta iyo luqadda iyo dhaqankaba baranayo wax walba waa qadar alle balse saa muuqaalka hore ku sheegay arrintu intay dhow tahay ayaa wax laga qabtaa ilmaha intay yaryar yihiin ayaa dhaqan celis loo sameyn karaa qof weyn oo high school dhameeyay oo jaamacad aado dhaqan celis uma sameyn kartid dhaqan celisna waa meel xoog ilmaha lagu hayo oo la isku dayo in laga tirtiro maskaxdooda waxa hore ku jiro oo xun oo dhan kadibna lagu daawlo gareeyo wax wanaagsan ee diin ka mid tahay dhaqan ka mid yahay luqadda ka mid tahay arrintaasi kuma sameyn kartid qof da'diisa 20 kor u dhaaftay aad iyo aad baad mahadsantii walaalayaal qisadaasi ku saabsan qoyskaasi qurba joogta ahaa oo watay 3 gabdhood oo geeyay magaalada Muqdisho gabadha ugu weyn la kari waayay dhibaato badan dadka u geysatay magaalada Muqdisho kadib la soo celiyay dalka ka imaaday lagu soo celiyay maanta intaas ayaan ku soo gabagabeenayaa fadlan haddaad ku cusubtaa channelka Qays iyo Raxma subscribe taabo gambaleelkana ku dhufo saad u hesho notification taniya kulantideena dambe walaalayaal waxaan idin rajeynayaa nabad iyo nolol assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم